السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مaalin wanaagsan. Aad baan idin salaamay dhammaantiin. Waxaan rabaa maanta halkan inaan idinkula wadaago mid ka mid ah decentralized exchangeska kuwooda aadka ugu xiisaha badan ama ugu magaca weyn. In badan hore waxaan usoo aragnay inaan kasoo sheekeynayno centralized exchanges ilaa dhowr aan soo qaadanay. Waxaan soo aragnay Binance, Gate.io iyo Bybit. Marka maanta waxaan u yara wareeganaynaa qaybta tan ee ah decentralizedka. Decentralized iyo centralized mar walba aan kasoo sheekeynay, yacni way kala duwan yihiin. DEXku ama decentralizedku waa exchangeyo inta badan cidna aanan maamulin, ee qofka isticmaalaha asaga mar walba mas'uul uu ka yahay dhammaan security keyskiisa. Marka maanta waxaan isticmaali doonaa exchange loo yaqaano Uniswap. Uniswap wuxuu ka mid yahay DEXka ama decentralizedka ayuu ka mid yahay. Wuxuuna leeyahay isticmaal iyo faa'iidooyin aad u fara badan. Marka waxaan fiirin doonaa maanta. Uniswap wuxuu ku dilisan yahay blockchainka Ethereum ayuu ku dilisan yahay. Wuxuuna u shaqeeyaa inuu facilitate gareynayo tradingka, poolska ama wuxuu leeyahay liquidity pools ayuu leeyahay. Wuxuu kaloo leeyahay feature ka duwan kuwa kale. Inta badan waxaa lagu gartaa waa permissionless, yacni qof kasta ayaa isticmaali kara. Poolska qof walba ayaa create gareyn kara oo qofka hadduu pool create gareeyo wuxuu ka dhigan yahay inuu yahay liquidity provider ayuu qofka noqon karaa, isagoo markaas ku biiraya poolska. Sidoo kale muhiimadda ugu fiican oo ay leedahay waxay tahay Uniswap waxaa lagu soo list gareeyaa coinska markay cusub yihiin ka hor intaanan imaanin exchange-yada waaweyn sida Binance oo kale iyo Kraken oo kale intaan imaanin. Waxaa markii hore lagu soo list gareeyaa Uniswap. So marka qofku wuxuu sameynayaa waan baran doonaa meesha laga helo coinska cusub iyo sida loo baaray sida loo socdo. Laakiin muhiimadda waxay tahay waxaad soo yacni iibsanaysaa tokenska intay magaca yeelanin ama aan lagu daadanin. Market cap-kooda uu yaryahay oo kale waxaad la isticmaalaysaa Trust Wallet ama MetaMask oo kale aad la soo degi doontaa. Waad soo iibsanaysaa waxaadna ku keydin doontaa MetaMask ilaa markaa uu kasoo kori doono. Marka waan fiirin doonaa dhammaan. Sidoo kale featuresku uu la gaaray waxaa ka mid ah oo kale ma laha order book, yacni meel aad kala socoto price-ka ma laha. Wuxuuna ku shaqeeyaa qaabka la yiraahdo AMM ama Automated Market Maker Model. Yani noocaas ayuu u shaqeeyaa Uniswapka. Haddaba waxaan fiirin doonaa sidee Uniswap aad ku soo degsan kartaa ama aad isaga register gareyn kartaa. Waxaad aadi kartaa source kala duwan ayaa jira oo aad kala soo degi kartid Uniswapka. Haddaad doonto si toos ah waxaad ku qori kartaa browserkaada uniswap.com si toos ah. Uniswap haddaad dhahdo .com si toos ah ayaad u iman kartaa. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad la kulanto links fake ah, yacni qolo tuuga ah oo Uniswapka ana sax ka ahayn ayaa laga yaabaa in linkigooda ay inaad ku aado kale in lacagta aad dhigato halkaas ay kala baxaan. Marka sana u dhicin waxaa habboon inaad aado meelaha yacni saxda ay ka tahay linksida. Yacni waxaa jira sources haddii aad booqato websites waxaa jira la yaqaano. Haddii aad booqatana aad ka soo heli karto linkiga saxda ah. Waxaa marka ka mid ah sida waxaad aadi kartaa kale market coin cap oo kale ama waxaad aadi kartaa Zingo. Waxaad aadi kartaa zingo.com. Haddii aanu aadno zingo.com, yacni waxaan ka soo geli karnaa zingo.com si toos ah. Zingo wuu sida cusleynaya. Waxaan fiirinaynaa CoinGecko oo kale. CoinGecko. Okay. CoinGecko asna aan fiirino intii inoo soo baxa. Haddaad doonto waxaad aadi kartaa market cap. Okay. Coin.Gecko ayaa inoo soo maray. Okay, good. Markuu kuu soo baxo kan iga xir markuu kuu soo baxo coin.Gecko markuu kuu soo baxo kale simple waxaad ku dhifanaysaa Uniswap aad leedahay Uniswap.
waa halka aad ka soo geli doonto Uniswap-kaada. Waxaad furaysaa coin.kigo ama market cap aad furi kartaa oo kale. Zinco.com aad furi kartaa, yani meelo badan. Kadib waxaad samaynaysaa, waxaad ka soo dooranaysaa Uniswap. Markii aad ka soo doorato Uniswap, waxaa kuu soo baxaya Uniswap iyo detailskiisa. Then waxaad raadinaysaa qaybta hoose ee ah website-kiisa. Halkan information markaad timaado, waxaad arkaysaa contract-ga Uniswap wuxuu ku dilaysan yahay Ethereum. Website-kiisu waa kan uniswap.org. Marka waxaad leedahay click. Hadda waxaa noo furmi doonaa page-ka Uniswap. Okay. Now waxaa marka hadda inoo socda inoo furmi doona Uniswap page-kiisi ama interface-ka. Okay, now marka waxaa inoo furmay interface-ka Uniswap ayaa inoo furmaya. Haddii marka Uniswap-ka aadan lahayn, horey aadan u lahayn, wuxuu ku leeyahay anigu ii soo degsanaa. Laakiin adigu waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo kale, haddii aad leedahay mid existing ah soo import garayso. Haddii aadan lahayn, create a new wallet inuu ku dhaho ayaa laga yaabaa. Marka haddii marka aadan lahayna, waxaad abuuri doontaa mid cusub. Haddii aad leedahayna, waxaad isticmaali doontaa seed phrase-kii hore aad u haysatay sirta ahayd aad gelin doontaa. Then waxaa kuu soo muuqan doona sida hadda aad arkayso shaashadeeda. Okay. Intaad tallaab qaadin, wax marka hore laga rabo inaad aad ku connect garayso wallet. Waxaad ku connect garayso wallet, then waxaa leedahay connect. Marka aad connect waxaa kuu soo baxaya Trust Wallet iyo MetaMask. Kuwan marka haddaad isticmaalayso computer waa inaad ku soo degsataa this wallet. Haddii aad rabtana inaad ku xirto wallet ku jira mobilkaadana waad samayn kartaa. Simple. Waxaad leedahay connect wallet aad leedahay. Markaad aad kadib waxaa kuu soo bixi doona meesha aad scan aad ka saaran lahayd. Then you scan it. Waxaad ka qaadanaysaa scan. Wuxuu ku leeyahay connect your wallet, ku xiro wallet-kaada. Haddii mar halkan aad ka qaadato scan, waxay ka dhigan tahay waxaad kala socon doontaa, yani waxaad isku xiratay taleefankaada iyo computerka. Okay, marka now marka anaga waxaan ku xiran doonaa Trust Wallet. Aan ku xiri doonaa. Waxaan leenahay connect ayaan leenahay. Markii aan dhahno connect, wuxuu ku weydiin doonaa password-ka aad u samaysatay Trust Wallet-kaada. Ayuu kaa rabaa. Kili marka halkan dhig ogowna Trust Wallet-kan waa inuu ahaadaa mid hore kuugu samaysnaa. Waan fiirin doonaa haddeer aan ku soo degsano wallet computerkeena misna aan ku xirno. Okay, wuxuu ku leeyahay marka connected to Trust Wallet. Uniswap-ka ku xiro Trust Wallet. Si markaas aad u aragto balance-gaada iyo activity aad qabanayso. Sidoo kale wuxuu ku ogolaanayaa inaad dirto transaction-ka codsigooda. Markii la rabo lacag in laga bixiyo kale ma dhici doonto adigoo markaas permission aad bixin. Yani marka waa ku muhiim. Dan waxaan leenahay connect. Waxaan isku xirnaa Trust Wallet iyo waxaan isku xirnay Trust Wallet iyo waxaan isku xirnay Uniswap. Okay. Now markaan isku xirnay ma ku soo shuban karnaa lacag? Waa inaad lahaataa marka hore centralized exchange waa inaad lahaataa sida Binance oo kale ama Bybit labadaba waa ku muhiim. Okay, then waxaan sameynaynaa halkaas waxaan siinaynaa click si aan lacag ugu soo shubano. Waxaan leenahay receive. Kan hore aan u isticmaalay waxaad leedahay receive. Markaad doorato receive, halkan scan waad uga qaadan kartaa. Laakiin hadda waxaan rabaa inaan uga soo transfer gareyno wallet kale. Dan waxaan leenahay copy. Halkaa ayaan soo copy gareystay. Waxaa marka toos aan u imaanayaa account-ga Binance ayaan imaanayaa. Waxaan leeyahay withdrawal. Waa the same scenario aan ugu dirsan lahayn meelaha kale normal.
laakiin wax yar waan kusii socon doonaa. Waxaa laga yaabaa inaad iska beddesho meelo yar waan idin tusin doonaa. Marka halkan aan joogno waxaan soo qaadan karnaa USDT, laakiin waxaa ku habboon inaan soo qaadano waxa la yidhaahdo Ethereum aynu qaadanaynaa ETH, maadaama block exchange uu ku shaqeeyo Ethereum. waxaan dooranaynaa Ethereum. waxaan u isticmaali doonaa Ethereum kan inaan u isticmaalno gas fee-ga ee transactionka ama swapping-ka labadaba waan u isticmaali karnaa. halka marka waxaan ku base garan doonaa addresskii. This address waxaan ka soo qaadanay la soco Uniswap. addresskan wuxuu ka socdaa 7821. This address waa from Uniswap. markaas halkaas iska hubi, then waxaad dooranaysaa network-ga. network aad dooranaysa iska fiiri, waa inaad doorataa network uu la shaqeeyo Ethereum. ERC20 aad qaadan kartaa, ama Pace waad qaadan kartaa, Arbitrum waad qaadan kartaa, Optimism waad qaadan kartaa. marka anaga hadda waxaan qaadan doonaa Optimism ayaan qaadanaynaa. Optimism okay. halka marka waxaad dhigi doontaa lacagta aad u rabto inaad ku shubto Uniswap ama Ethereum kaad ku shubaysaa. waxaa u yar 0.2018 ayaa u yar. intaa kadib waxaad halkan aad ku arki doontaa network V-ga, then waxaad ku samayn doontaa withdraw. haddii marka intaa aad samayso kadib, muddo kadib marka waxaa dhici doontaa in lacagtaadii halkaas ay kuu soo gasho, ay kuu soo dhacdo. no matter USDT laftirkeeda anaad waan kusoo shubtay waad keensan kartaa, no problem. okay, intaas markaa samayso oo lacag aad kusoo shubato Uniswap-kaada, then waxaan sameynaynaa inaan swapping aan ku sameyno tokenska. waxaan ku sameynaynaa swapping. swap aad ku sameyn kartaa tokenada caadiga ah, laakiin waa inay ahaadaan kuwa ku dhisan Ethereum. halka marka dooro tokenka aad rabto inaad sell gareyso ama aad ku sameyso swapping-ka. halka aad furi kartaa, then anaga waxaan soo qaadanaynaa kale ETH-kaas ayaan qaadanaynaa. halka hoose waxaad ka dooran doontaa tokenka aad rabto. waxaad dooranaysaa tokenka aad rabto inaad ku sameyso swapping-ka. haddii coinka uu yahay mid cusubna, in case uu yahay mid cusub, waxaad soo qaadanaysaa addresskiisii. waxaad aadi doontaa halka uu ka soo baxay. halkan ayaad tegi doontaa. hadda coin cusub ima muuqdo, laakiin bal aan fiirino. for example, coinka cusbaa oo kale waad soo qaadatay Lido ma cusba, laakiin waa example. waxaad soo qaadatay Lido kale. markaad furto Lido, waxaa marka aad raadinaysaa Lido informationkeeda iyo chainka ay ku dhisan tahay ayaa laga rabaa, ama contractigeeda. here is Lido. marka waxaad koobi garanaysaa Lido addresskeda aad leedahay koobi. dan waxaad ku laabanaysaa Uniswap. halka ayaad furaysaa, waxaa leedahay marka search. halkaas waxaad ku siin doontaa paste. markaad paste ku siiso, waxaa kuu soo halka ayaad ku siinaysaa paste. markaad paste ku siiso, waxaa kuu soo qormi doona tokenka Lido ayaa kuu soo qormi doona. then waad dooranaysaa marka Lido. waxaad bilaabaysaa swapping-kaadii. markaad bilaabayso swapping, waa iska fiirisaa gas fee-ga. waa inaad sidoo kale iska fiirisaa tokenka aad rabto inaad swap gareyso. okay, marka now waxaan rabnaa inaan bilowno swapping-keena. waxaan dooranaynaa token. halkaa ku dhufo select token. halkaa marka waxaa kugu yaala dhammaan tokenskii markaas halka ku yaalay. marka waxaad qaadan kartaa midka aad doonayso. then waxaad dhihi kartaa kale Lido kale ii door.
okay you have lilo waxaad marka aad galaysaa amount aad ka rabto kale for example waxaan rabaa inaan 0.001 oo kale aan dhaho inaan geliyo ama aan swap gareeyo 0.01 so marka wuxuu ku tusin doonaa v-ga laga rabo wuxuu ku leeyahay review iska fiiri waxaan ku dhihi doonaa review garee yani gas v-ga maxaa kaaga bixi doona hoos kugu soo qoray halkan wuxuu ku leeyahay marka network cost-igu waa intaas lacagta kaa bixayso waa intaas intaad heli doontana waa 1.947 oo liida aad ku heli doontaa haddii marka aad ku faraxsan tahay waxaad leedahay swap marka aad swap marka wuxuu kaa rabaa inaad ka confirm gareyso wallet-kii ayuu u dirayaa wallet-kii haddii aad doonto waxaad dhihi kartaa reject haddii aad doontana waxaad dhihi kartaa confirm marka wuxuu ku leeyahay marka contract waa if amountigiisu waa intaas network ayuu ku soo qorayaa halkan waa v-ga estimate time-ka halkan ayuu kaa siinayaa haddii markaan dhahno confirm yani wuu qaadanaya marka simple haddii aan dhahno confirm waxay marka ay ka dhigan tahay in uu qaadan doono swapping-ka okay hadda wuu shaqeynaya wuu socdaa okay waan swap gareynay swap is done wuxuu kaa rabaa inaad ka confirm gareyso euro wallet-kaada waxaan ku niri confirm so marka uu inoo qaato deer swapping-keena haddii marka in case aad rabto inaad maxaan ku dhahdaa aad sameyso halkaad aragto hadda wuxuu ku jiraa waa pending laakiin wuu qaadan rabaa hadda wuxuu leeyahay waa pending waad furi kartaa halka laftirkeeda saad u aragto meesha ay marayso halka okay waxaan kaloo fiirin doonaa marka haddii in case aad soo ogaato ama aad soo aragto token cusub kadib aad rabto tokenkaas xalkiisu okay marka hore aan fiirino midka haddaan soo swap gareynay wuxuu ku leeyahay statusku waa success arkay halkan marka ayuu kuugu sheegaya tokenska aad swap gareynayso halkan yani lido iyo ether isku wadataa ku leeyahay marka halkan waa price gas v-ga transaction v-ga value ethka uu u dhigmo intaba uu kuu muuqdaa so marka we have done swapping waan sameynay halkaas okay haddii marka in case aad rabto in aad yani waxaad aragto kale token cusub waxaad marka rabtaa tokenka isaga aad soo ogaatay marka hore aan wax yar aan ka fiirino tokenka markuu cusub yahay xaggee marka laga soo ogaadaa tokenka markay cusub yihiin waxaa jirto 3 meelood oo laga soo ogaan karo waxaad ka soo ogaan kartaa oo kale X barta X ama Twitter-ka lagu soo bandhigaa Reddit-ka oo kale iyo Telegram-yada oo kale markaad soo ogaato tokenka ka hor intaas dadka ku soo yaacin oo market cap-kiisu aan la balaarin waxaad arkaysaa market caps-ka qaarkood waxay marayaan billions laakiin markay cusub yihiin maaha inay ku bilowdeen billions waxaa laga yaabaa inay ku bilowdeen kala boqolaalo ay yimaadeen thousands saasay ku socdeen marka intuu cusub yahay markaad soo ogaato kadib waxaad samaynaysaa inta badan waxaa lagu soo list gareeyaa market cap-ka oo kale ayaa lagu soo list gareynayaa dan waxaad samaynaysaa coinkii isaga ahaa ee aad soo ogaatay ayaad qoraysaa leedahay serge coinkii isaga ahaa oo kale ayaad leedahay serge hadda anaga coin cusub nooma baaran laakiin waxaan isaga tusaale qaadanaynaa coinskii hore weliba ku shaqeynaya ethereum-ka okay Cronos oo kale Cronos ayaan soo qaadan oo kale for example marka soo qaad Cronos waa token cusub let's say in Cronos uu yahay token cusub waxaad imaanaysaa xaggaas information-kiisa waxaad koob gareynaysaa address-kiisa dan waxaad imaanaysaa halkaas dan waxaad leedahay haddii halkan marka aad furto in case aad ka arki weyso oo kale
aad arki weyso kale dan waxaa leedahay search halkaas waxaad dhigi doontaa paste markaad dhigto paste yani wuu kuu soo baxaya marka maalkii markuu kuu soo baxa kadib then waad soo qaadanaysaa waxaa marka aad keensanaysaa metamaskigaadan marka waxaanu fiirinaynaa haddii in case metamask uusan kugu jirin sida metamask aad ugu soo xirireed oo kale marka hadda waxaanu sameynaynaa hadda waxaan kusoo xirnay trust wallet laakiin hadda waxaan ku xiran doonaa metamask disconnect aan dhahsaan ugu xiro idin tusiyo okay waxaan rabaa haddeer inaan Uniswap inaan ku xiro metamask si aan u dhigto tokenada cusub ama coinska cusub ee soo baxaya saan u dhigto aan ugu kaydsado anigoo markaas ku sameynaya swapping isticmaalayana Uniswap markii aad soo furto interface-ka ee Uniswap-kaada waxaad dhihi doontaa halkaa geeska ah connect hore idin kugu sheegay sida loo soo furto si toos ah waxaad u garaaci kartaa website-ka aad dhihi kartaa Uniswap normal si toos ah ama waxaad soo mari kartaa website-yada kala duwan sida CoinKiku MarketCap iyo wixii lamid ah anyway qaabkaas aad ku timaadaba markii aad soo gasho kadib aad rabto inaad ku xirato metamask ayaanu fiirin doonaa waxaad dhihi doontaa connect markaad aad connect kadib hadda anigu nagu jira metamask laakiin adigu waxaad dhihi doontaa waxaad la soo degi doontaa metamask saad u soo degto metamask waxaad qori doontaa metamask.io dan enter dheh markaad enter dhahdo wuxuu ku siin doonaa applicationka waxaad dhihi doontaa get started waad soo download garaynaysaa markaad soo download garayso wuxuu ku leeyahay get started wuxuu ku dhihi doonaa add to Chrome dan wuxuu ku dhihi doonaa add extension laakiin anaga hadda waa hore u soo degsanay marka wuu noogu jiraa soo marka waan ka soconaynaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu naga rabo inaan sameyno marka waan sameyn doonaa metamask now marka let's create our metamask aynu abuurno wuu la soo degsan yahay laakiin waxaan sameysanaynaa mid kale saan idin tuso wuu shaqeynayaa okay wuxuu ku leeyahay wait page unresponsive qadka ayaa haga adag yes hadda uu qaatay okay marka waxaa shaqeynaya metamask ayaa halkaan kan inoo furmaya marka waxaan sameyn doonaa metamask ayaa waxaan ka sameysan doonaa account haddii aanu leyn account hore wuxuu ku leeyahay import ku samee existing wallet haddii yani aad lahayd wallet hore ku samee import kaliya wuxuu ku weydiin doonaa seed phrase-kaada haddaadan lahayna haddaba la create garee marka anaga haddeeraan create gareyna waxaan leenahay create a wallet dan waxaan leenahay agree okay wuxuu marka ina weydiinaya inaan gelino passwordkan wuxuu kaa rabaa ilaa 8 characters ayaa laga rabaa inaad geliso okay wuxuu ku leeyahay confirm garee passwordka I understand waan fahansanahay in metamask uusan lahayn recover waa lagu diga arkaysaa haddii marka passwordka uu kaa lumo metamask ma laha wax recover ah marka waxaad ku khasban tahay seed phrase-ka lagu siiyey password-iskaada inaad yani si adag aad u ilaashato maadaama aan lahayn wax recovery ah dan waxaan leenahay create a wallet iyo abuur wallet iyo abuur aan leenahay okay
secure your wallet. Walletka waa inaad markaa ka dhigataa mid secure ah. Wuxuu markaa ku diri doonaa secret phrases oo ah for recovery ayuu ku diri doonaa. Waana recommended marka waan direynaa. Waxaan leenahay secretka noo dir. Halkan marka wuu kaa qarinayaa. Wuxuu ku leeyahay marka maadaama aan ku jiro recording wuu qarinaya marka. Write down your secret recovery phrase. Qoro waxaad ku qorataa xaashi soo qaado waa 12 phrase inta badan. waxaad ku qortaa marka meel gaar ah inay kaa dhumi karin ayaad ku qoranaysaa. Okay, 12 marka weirdska ahaa waan qortay. Dan waxaan leeyahay next. Okay, now marka wuxuu ka rabaa inaad confirm gareyso ama inaad hubiso phraseski isaga ahaa secretka ahaa. Marka maadaama uu ku qoran yahay si marka waxaad u kala hormarin doontaa si tartiib ah. Wuxuu ku soo saaray wuxuu ku yiri waxaad buuxisaa xarfaha kan maqan. Number 3 maxaa kugu qoran ayuu ku yiri. So marka wixii kugu qoran number 3 waa taqaanaa soo halkaas geli. Number 4 wixii kugu qoran halkaas geli. Number 8 wixii kugu qoran halkaas geli. Mar waxaa laga yaabaa inuu dhammaan inta kuu soo qaado uu ku yiraahdo kala hormare. Mar waxaa laga yaabaa inuu 3 xabo uu missing ka dhigo yiraahdo 3 missing soo geli. Haddii marka aad soo geliso wuxuu fahmayaa inaad tahay qofkii lahaa. Dan marka waa lagu ogolaanaya xilli marka confirm. Okay, waa confirm gareynay. Dan marka waa done. Congratulations. waad abuuratay account-kaadii MetaMask ahaa. Marka install ku samee browser-ka ayuu ku leeyahay. So marka ma sameynayno hadda waqti ma hayn laakiin waan aragnay Soomaaliya sida markaas loo dhigto ama loo sameeyo MetaMask. Marka come back here halkan ima marka ku xiro iyo MetaMask mar kale. Waa symbol. Haddii markaad ku xirato waa sida Trust Wallet oo kale. Hadda aan ugu xirno oo kale ayay ka dhigan tahay ama ayuu noqon doonaa. Okay, then next aad ku dhifan doontaa. Markaad ku dhifto next halkan ayuu ku sii keeni doonaa. So marka waxaa leedahay God ay leedahay. Okay. Hadda marka now your MetaMask is here. Halkan ayuu ku yaalaa MetaMask-yada ama account-kaadii MetaMask-yada ahaa. oo ku abuureynaa it is here. Haddii aad rabto aan ku soo shubato asana saas oo halkaas aad ka leedahay copy. So marka now alxamdulillah waa ku sameysay account MetaMask. waad soo abuuratay halkan ay soo dhigatay. waxaan markaan rajeynayaa haddii aad raacdaan steps-kan inaad awoodi kartaan inaad la soo degtaan MetaMask aad soo degsato. Sidoo kale waxaad awoodi doontaa in aad ku sameysato swapping inaad ku iibsato token cusub. intaba waad samayn kartaa. waad mahadsantihiin. halkaas ayaan ku keenaynaa casharkii ahaa Uniswap.